بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan idinayno kuwoodii ugu waaweyn ee galabnimadan warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha xabsiga dhexe oo bukaan kala baxay mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho James Swan oo gaaray Kismaayo wada hadallo la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland wararkii ugu dambeeyay doorashada galmudug iyo xulista baarlamaanada maamulkaasi askar ka soo baxsatay Ahmed Mudube oo u soo lugeeyay Kismaayo ilaa iyo Muqdisho kooxda al-shabaab oo saakay weerar xoogan ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe wararka dibadda aan idin heelan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Pakistan General Musharraf oo lagu xukumay dil waxaa daawateen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa waana galabnimo taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha 12 December 2019 nasoo dhawaada warkeennii oo faahfaahsan taliyaha ciidanka xabsiga dhexe sareeyo guud Maxamed Sheekh Xirsiile ayaa lagu eedeeyay inuu mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho kala baxay bukaan xabsiga dhexe ku xanuunsanayay oo dhaqaatiirta xabsigu ay sheegeen in aan wax looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsiga dhexe qoyska bukaankan ayaa sheegay in taliyaha xabsiga dhexe oo adeegsanaya awood ciidan uu xoog ku soo galay isbitaalka uu bukaankan jiifay waxaana ay sheegeen in uu bukaanku ku qaatay mid ka mid ah gawaarida gaarka ah ee ay leeyihiin ciidanka ilaaliya xabsiga dhexe xamar islamarkaana la yiraahdo ciidanka asluubta Soomaaliya bukaanka oo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow oo ku jiray xaalad halis ah islamarkaana koomo ku jira ayay qoyska bukaanku sheegeen in uu taliyuhu amray in laga furo koomada islamarkaana la sheegay in xabsiga xamar dib loogu celiyay qoyska bukaanka oo muuqaal ka duubayay marka uu taliyuhu falkan sameynayay ayaa muuqaalka ku dhex sheegay in waqtigaas uu taliyaha awood u sheeganayo islamarkaana uu isaga qaadi doono mas'uuliyadda bukaankan haddii uu dhinto 24 saac kadib bukaanka ayaa ku dhex geeriyooday xabsiga dhexe waxaana qoyska marxuumka ay sheegeen in aan la duugi doonin inta sharciga laga horkeenayo taliyaha ciidanka ilaalada xabsiga xamar qoyska marxuumka ayaa dowladda ka codsaday in la soo qabto taliye Xirsiile islamarkaana laga qaado tallaabada islamarkaana ay sheegeen in garaadaha uu xiran yahay laga qaado maxkamadna la soo taago marxuumka geeriyooday ayaa ku xukunnaa ilaa iyo 8 sano wuxuuna xabsiga ku jiray ilaa iyo 3 sano iyo bilooyin taliyaha xabsiga weli kama jawaabin eedeymaha loo soo jeediyey waana sidoo kale taliyaha uu warbaahinta kala duwan xiriir ay la sameeyeen waxa la sheegay inuu ka gaabsaday inuu arrimahan ka hadlo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo goordhow gaaray Kismaayo ayaa waxa uu kulan xasaasi ah magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudube kulankan oo ah mid albaabadu ay u xirnaayeen ayaa waxay wararku sheegayeen in looga hadlay arrimaha khilaafka dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ujeedka safarka Swan ayaa ah sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac isla markaana loo dhameyn lahaa khilaafka ka dhashay doorasho dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo taa oo la sheegay inuu dib iskugu doortay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudube beesha caalamka ayaa wada dadaalo ay ku doonayso in la iskugu keeno dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo dowladda federaalka oo la qorsheynayo in dhawaan wada hadallo rasmi ah ay bilowdaan ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoona inta badan la xiray wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada Jubbaland waxaana halkaa la sheegay in la dhoobay ciidamo badan lama oga natiijada ka soo bixi doonto kulankan
oo ku soo aadaya iyadoo uu shalay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu dib ugu laabtay gudaha magaaladaas kadib toddobaadyadii u dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. xiisada dowladda iyo Jubbaland ayaa sii xoogeysatay iyadoona xubno ka tirsan maamulka gobolka Gedo ay ku biireen dowladda isla markaana haatan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho kulamo siyaasadeedna ka wada gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. magaalada Muqdisho ayay ku sugan yihiin kulamo kala duwan ayayna la qaateen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxa uu weli magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada baarlamaanka iyo sidoo kale kan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee maamulka Galmudug. wararka ayaa sheegaya in guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug uu wado dadaalo xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii heshiis dhab ah laga gaaray khilaafkii xooganaa u dhaxeeyay dowladda iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaaca. doorashadan ayaa marar badan dib u dhacday waxaana maanta ay ku beegan tahay 17 Diseembar lana filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyay ee guddiga farsamada. inkastoo isbedel hadda uu ku yimid dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha Galmudug ayaa waxa uu sii fogeynayaa dadaalada looga jiro in la dhiso maamul Galmudug loo wada dhan yahay. dhinaca kale Senator Ilyas Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka xisbiga Himilo Qaran oo ka hadlayay dib u dhacan ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida dowladda federaalka Soomaaliya muddo 8 bilood ah doorasho ugu sameyn laadahay deegaanada Galmudug. sidoo kale waxa uu su'aal ka keenay sida ay dowladdu ugu guuleysan karto in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo 2020 ka dhacda guud ahaanba Soomaaliya. Galmudug ayaa waxaa la dareemayaa qabanqaabo ugu dambeysay oo lagu doonayo in lagu soo dhiso xildhibaanada baarlamaanka iyadoona sidoo kale shacabka Galmudug bilooyinkii ugu dambeeyay aysan lahayn wax maamula. tan iyo 2018 ayaan doorasho ka dhicin deegaanada Galmudug iyadoona bishii Julaayo ee 2018 ay ku ekayd helhaynta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hadda tanaasulay isla markaana uu sheegay in dowladda federaalku uu wakiishay doorashada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. 11 askari oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Axmed Madoobe oo ka soo lugeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ciidankan oo markii hore tiradoodu ahaa 16 askari ayaa al-shabaab dagaal culus kula galay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta Kismaayo. dagaalkaas ayaa waxaa looga dilay 5 askari waxaana al-shabaab ay kala wareegeen gacan ku haynta degmada Jamaame oo ay muddo joogeen markii ay ku adkaysteen in ay joogi doonaan degmadaasi. ugu dambeyn ayaa ciidankan waxaa la sheegay in ay u soo baxeen dhanka magaalada Baraawe. Cabdirasaaq Cabdi Cumar oo ah sargaalka hogaaminaya ciidankaas ayaa sheegay in muddo 7 ah ay ku qaadatay in ay soo gaaraan Muqdisho iyagoona dagaalo culus ay la galeen al-shabaab. Cabdirasaaq waxa uu sheegay in socdaalkii ay uga soo baxeen Jamaame ay ku soo galeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo ka mid ah goobaha ay ugu awoodda badan yihiin al-shabaab isagoona sheegay in ilaa iyo 3 goobood ay zakawaad ku aruursanayeen al-shabaab kula dagaalameen isla markaana ay ku direen xubno shabaab ah. waxa uu sheegay in rafaad dheer kadib 17koodii oo wata hal askari ay soo gaareen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegay in ugu dambeyn ay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay sheegeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka waayeen waxyaabihii ay ka filayeen.
halka warkan aad ka daawanaysaan waa wararka 24 saac markana dibadda. maxkamadda sare ee waddanka Bakistan ayaa xukun adag ku riday madaxweynihii hore ee waddankaas gacanta birta ah ku maamulayay ahaana jenaraal military ka tirsan. gudoomiyaha maxkamadda khaaska ah ee Bakistan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore ee waddankaas lagu xukumay dil kadib markii lagu helay dambiyo dhowr ah. mas-uuliyiinta Bakistan ayaa sheegay in maxkamadda la dagaalanka argagixisada Bakistan ay keligii taliye Mustaf ku xukuntay in la dilo xilli uu dalka dhibaatadiisu aaday u daran tahay. dambiyada ugu waaweyn ee Musharraf uu lagu helay ayaa waxaa ka mid ah in uu ku dhacay khiyaano qaran kadib markii uu jebiyey qodobka 6aad ee dastuurka dalka Bakistan. warkeena galabna waa naga intaa. haddii aad ku cusub tahay janalkeena subscribe si aad u hesho xogaha kale aan soo gudbino. nabadgelyo.